marka waxaan u jeedaa qiso aan in yar rabo inaan soo gaabiyo ayaan rabaa inaan in yar laba kelmadood ka iraahdo qisadaasi waxa weeyaan anoo jooga meel la yiraahdo Nidaamuddin waa xarunta tabliiqa tajdiidka juhdiga غير marquubinka ah oo ku taala India ayaan casar assalaamu calaykum markaan sidaa aan u tukanay baan waxaan arkay nin blue eyed ah oo European ah oo dhinacayga ku tukanaya markaasaan ku iri markaan salaadii adkaati dhamaysanay baan ku iri kullay European baad u egtahay diinta kuma adalanina ma ii sheegi kartaa sida diinta ku soo gashay markaasuu yiri waqti ma haysataa markaasoo aan ku iri ha waa haystaa qisada ma sheegi karaa barakallahu fiikum marka waxaan wuxuu yiri anigu waxaan ahay German ku nin German ahay waxaan ahay biir mechanical engineer Philippine baan u guuray buu yiri waxaan guursaday qof dumar ah oo ah buduu diinta buduuga haysata wiil bay ii dhashay wiilkii markuu jaamacad levelkeeda gaaray wuuna dhibay iskuulkiisa fiican jaamacadda u tagi maayo mukhadaraad arrimo waxa anagu la liidana umbu maanta dambe ii mid wuxuu yiri aad waxaan rabaa inaan muslim noqdo oo diinta islaamka soo galo markaasaan ku yiri oo aabo diimuhu waa badan yihiin maxaad islaamka ku dooratay markaasuu yiri aabo wiilal baan jaamacadda la dhigtaa oo haddii ay aabo sheekeeyaan run bay sheegaan oo aabo haddii ballan galaan way oofiyaan oo aabo haddii nin miskiin arkaan way caawiyaan oo nin weyn haddii arkaan da'a way xushmeeyaan mid yar haddii arkaan way u naxariistaan aabo sifooyinkaas intaan ku arkay baan jeclaystay sidaas awgeed diinta tan waa diin wanaagsan ii ogolow markaasaan ku yiri aabo you are a grown up man no impact your choice is your choice markaasuu laakiin hooya ii diidan oo maxay ku leedahay waxay tiri waraanaka diin saddexaad nala soo gali ama sida aabaha Kirista noqo ama sida anigu aan ahay buduunimada ila soo gal markaasuu masaasi ku tir ha arina keen wuxuu yiri talaabada aan qaaday ee wiilka aan raacay baan u maleynay Ilaahay inuu igu naxariisto aniga islaamnimadan igu siiyay wuxuu yiri wiilkii ina keen baan ku yiri markaasaan islaamtu tiraya wiilkan ma kula hadlay markaas tiraha oo muxuu ku yiri sidaa oo maxaad ku tiri waxaan ku yiri anaka labada diimood mid saddex naga soo gal ee anigu diintan aad buduuga haysato markii aan ku guursanayay miyaan anigu kala hadlay markaasaan ay tiri maya haddana wiilkayga hayga hadlay diintu rabo ha qaato hayga hadlay wiilkii markii uu baa noloshiisa isbedeshay subaxii ninka aanu anaku kicin kari weynay waa kacaya masaajid buu aadaya wuu imanayaa quraac buu noo sameeyaa mom dad breakfast ready markaasaan gacanta intaan sidaa iraadaan sidaa u eegaaweeyay aan iraadaan ma aragta ninka diinta u diidaysay wuxuu yiri habeenkii masaajid soo qaatay lugaha iyo wax dhan buu noo doogaa wuxuu yiri wiilkii baan jeclaystay maalintii dambe soo socday aabo very serious baan rabaa inaan kala hadlo waan maxay aabo sida ma san waan jeclaystay wiilkii wuxuu aabo waxaan rabaa diinta inaad la soo gasho islaamka markaasaan dib u yara fadhiistay markaasaan iri buu yiri anaa fikray buu yiri wallaahi diinta wiilkaaga sida u bedeshay ee sida ka dhigtay alla diintan inay diin tahay markaasaan ku yiri my son I am ready wuxuu yiri inanka intuu farxay buu igu soo booday oo ii dhunkaday markaasaan sidii ku waxaysanay wuxuu yiri shahaadada buu ii qabtay 3 maalmood oo tabliiq u saaray jaamacad buu igu daray salaadii baa la soo baray haddana maalmihii baa la ii kordhiyay diintii baa xoogaa la iga soo baray waan soo noqday markaan ogaaday oo kutubna la siiyay inaan naag labaad guursan karo baan islaantii u tagay ayaa gabdho dawdiinta ogole ayaa dhagayso anigu diin cusub baan galay kowdhe diinta aan galay waxay ogoshay 4 inaan guursado marka waan kula guursanayaa ogow markaas tiriyaa hayaa diinta sida qabto gabadh baan guursaday muslimada
وحي الحق يدران سينا وأتقنا هديت بانو جيا قبل بانو حي تبدو وحي شقالها يجي يماشي نرش شيء يوردن بايس بدشي تعلين تانو قبلنا ماشي ورشد بانو لين هاي تعلين تانو قبلنا شقاله هدوانا ربحان وايس بدلا مربع قلا ستح بري بحذا مربع فرتن بري بحذا برواقو وانا شحني واللي يباني ما أنت دمبه سلانتي أرديسة أيها نوتن كب أيها محبا حوارتك أنا هذا المسلميو وأنا وجه ذا ورهوي لمن كان عدل كتيرة باريرك يورن تسبب النقطة إذن كنا سيدا عادية شا معها وهبكينا تقنك أتكون تقنتان بعدك أما الدين تجعل سينية أما كفوينية waxaan idinku soo gabagabeynaya ninka isaga ahaa wuxuu yiri muslimiin hadda maxaa qorshaha uu yahay baan wuxuu qorsheeyay waxa weeyaan 4 bilood baan baxsanahay bil waxaan joogayaa India 3 biloodna waxaan u socdaa buu yiri Germany aabahay wuxuu ku dhintay bil gaalnimo awowgay gaalnimo ku dhintay hooyaday gaalnimo ku dhimatay ayeeyaday gaalnimo ku dhimatay wuxuu yiri muslimo maxaad ilaahay xageebaad barito ka gali doontaan marka ay waxaas idinkoo nicmada haysta intaad meel la fadhiisateen aad tirahdeen dadka nicmada ayaan loo geeyno yaan la siinin xageebaad ilaahay ka gali doontaan maxaad ku hadli doontaan idinkaa sabab u noqday in aabahay maanta jahannamo ku jiro hadda waxaan u socdaa buu yiri adeerkay iyo adeeraday inaan ka gaaro inaysan jahannamo gelin ka walaalay waxaan uga jeedaa idinka mas'uuliyadaas idin saaran tahay dadka aad la dhigataan waa population idinka badan weeyaan population-kan inaad ku dadaashaan إنما الأعمال بالنيات حتى نيتك كان نيته دقن كينا حاجاتية ذات كان حداد هبينك كنت عيسان وقت صلاة الليل كنت كتان وقت إلهي يوم أنا كنت ما أنت وادد له وصومرني وأخلاق دي وناسرين واتسني إلهي يوتك كان ده هدايته أفر وهو حي إلهي وأفر إياه marka waxaan u jeedaa qisa aan in yar rabo inaan soo gaabiyo ayaan rabaa inaan in yar laba kelmadood ka iraahdo qisadaasi waxa weeyaan anoo jooga meel yiraahdo nidaamadiin waa xarunta tabliiqa tajdiidka juhdiga غير marquubinka ah oo ku taala India ayaan asar assalaamu calaykum markaan sidaa aan u tukanay baan waxaan arkay nin blue eyed ah oo European ah oo dhinacayga ku tukanaya markaasaan ku iri markaan salaadii adkaati dhamaysanay baan ku iri kullay European baad u egtahay diinta kuma adalanina ma ii sheegi kartaa sida diinta ku soo gashay markaasuu yiri waqti ma haysataa markaasuu aan ku iri ha waa haystaa qisada ma sheegi karaa barakallahu fiik marka waxaan wuxuu yiri anigu waxaan ahay German kan ku nin German ahay waxaan ahay mechanical engineer Philippine baan u guuray buu yiri waxaan guursaday qof dumar ah oo ah buduu diinta buduuga haysata wiil bay ii dhashay wiilkii markuu jaamacad levelkeeda gaaray wuuna dhibay iskuulkii si fiican jaamacad u tagi maayo mukhadaraad arrimo waxa anagu la liidana maanta dambe ii mid wuxuu yiri aabe waxaan rabaa inaan muslim noqdo oo diinta islaamka soo galo markaasaan ku yiri oo aabo diinuhu waa badan yihiin maxaad islaam ku dooratay markaasuu yiri aabo wiilal baan jaamacadda la dhigtaa oo haddii ay aabo sheekeeyaan run bay sheegaan oo aabo haddii ballan galaan way oofiyaan oo aabo haddii nin miskiin arkaan way caawiyaan oo nin weyn haddii arkaan da'a way xushmeeyaan mid yar haddii arkaan way u naxariistaan aabo sifooyinkaas intaan ku arkay baan jeclaystay sidaas awgeed diinta waa diin wanaagsan ii ogolow markaasaan ku yiri aabo you are a grown up man no impact your choice is your choice markaasuu laakiin hooya ii diidan oo maxay ku leedahay waxay tiri waraa anaka diin saddexaad nala soo gali ama sida aabaha Kirista noqo ama sida anigu aan ahay buduunimada ila soo gal markaasuu masaas ku tir ha arina keen wuxuu yiri talaabada aan qaaday ee wiilka aan raacay baan u maleynaya ilaahay inuu igu naxariisto aniga islaamnimadan igu siiyay wuxuu yiri wiilkii ina keen baan ku yiri markaasaan islaamtu tiraya wiilkan ma kula hadlay markaas tiraha oo muxuu ku yiri sidaa oo maxaad ku tiri tan waxaan ku yiri anaka labada diimood mid sadex naga soo gali ee anigu diintan aad buduuga haysato markii aan ku guursanayay miyaan anigu kala hadlay markaasaan ay tirmaya
haddana wiilkayga haygala hadla diintuu rabo ha qaato haygala hadla wiilkii markale unbaa noloshiisa isbedeshay subaxii ninka aanu anaku kicin kari weynay waa kacayaa masaajid buu aaday